السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. وكالنت هذه كمبيوترك وحسو قارني طبعا 10 maanta inoo muhiim ah oo ah qaabka aad future-kaaga off uga dhigi karto activity-ga Facebook activity wax la dhaho. waxaa idiin soo gudbinaysa dabcan bahda Somali Training Center oo Cabdulif Aadan ah. Facebook activity wax la dhahaya ayaa jira. bal talaabooyinkan ila soco intaanan bilaabin waxaa laga yaabaa dadka maxaa Facebook activity u yahay. saa la socotaba Facebook wuxuu manage gareeyaa any app kasta oo computerkaada ku xiran ood gasho. standard ama default waa on waa daaran yahay, marka adaa lagaa rabaa inaad iska damiso. taas maxay sahlaysaa ka soo qaad any app ood booqatay haddii aad tagto waad ku arkaysaa halkaas. taa marka waxay security gap gelinaysaa haddii uu bank online ama banking online-kaaga uu ku xiran yahay in dadka maaragtay la dhaho ama hackerska loo yaqaano ama loo yaqaano badanaa inay jabsadaan burcad badeedka la dhihi jiray burcadka internetka. accountigaada haddii la helo waxaa suuragala informationadaada qaar in meesha laga helo. waa sax dadka qaar wax laga yaaba inay dhahaan oo facebookaada haddii la galo dabcan waxaa tahay waa la ogaay iyadoo la ogyahay, laakiin wax badan oo adi informationkaaga kolley kuma jiro. adresskaaga, teleefonkaaga, locationkaa joogta meelahaasaa laga yaabaa, laakiin haddii uu business ku xiran yahay arrimo business u isticmaaso facebookaada waa under issue. laakiin waxaan ka hadlayna waxa waaye facebookaga caadiga. marka qof walba waa laga rabaa inuu dadaalo. bal tallaabo inuu soo soconno qaabka loo off gareeyo Facebook activity. waayahan ku dhaqaaqno. marka koowaad dabcan waxaad tegi doontaa magacaad ku gelayso oo online-kaaga, kadibna profile-kaaga arkaysaa see your profiles. waxaad tegaysaa markaa setting step 2. waxaad ka dooran doontaa setting and privacy. setting and privacy markaad tagto waxaad riixi doontaa ama qaybta labaad waa qaybta saddexaad settings wax la dhahay. marka meesha setting tagto ayaa waxaa kuu soo baxaya your Facebook information wax la dhahay. your Facebook information markuu kuu soo baxo waxaad samayn doontaa waxaad uga gudbaysaa intaanu arrimood ayaa soo baxay qodobka shanaad your Facebook information. okay, waxyaalo badan baa ku jira oo maxay ku yahay access your information, view aa leedahay markaas hadaa rabto, transfer copy your photos and videos, another service haddii sawirada kugu jiro iyo videoyaasha ama meel kale inaad transferta rabta, download information or download your information, download of copy information to keep transfer another server haddii iyagana rabta dabcan inaad soo download garaysata. activity log waxaa ku yaala view and manage your information some setting meelahaad ka setting garayn karto. meeshaas waa activity-gaada. meeshaan ujeedno meeshaan calaamadeeyey off Facebook activity. macnaha waa Facebook activity-da inuu off ka dhigto. inta waxaa ku qoran view of clear activity business organization you visit off Facebook. waxyaalaha aada booqatay, meelaha organizationada businessada aada booqatay halkaas ka deg. wuxuu subinaya Facebook wax la dhahay gaaska. wuxuu qiyaasayaa ama la socdaa xarakaadkaaga qaababka u badan tahay meeshuu soo dhigaa. waana arki doonaa runtii. kadib waxaad tegi doontaa waxaa kuu soo baxaya qodobka 6 your off Facebook activity. marka number 6 waxaa ku yaala halkaas hadaa rabto clear your history. haddaad clear leeda macnaheedu waxaa waaye
any app oo booqatay anywhere ayuu clear garaa oo macnaha oo tirtiraya clear ya masax. kadib waxaad ka dooranaysaa manage features. manage feature markaad riixdo kadib waxaad tegaysaa tallaabooyinka. haddaad step by step u raacdo waa sida saxda. ama telefonaan ka galnay ama computeran ka galnay. marka telefonka markii laga duubo badana waxaa laga yaabaa video mararka qaar inuu qoraalada uu aada u fogaanayo. marka waxaan u dooranay sawirka waxawaaye in ardayga ay u muuqato si sahal inuu arki karo. waa yeeli kan ina telefonka ka duubdo ama camera laga duubo laakiin way fogaanaysaa oo zoom ankooda ayaa yaraanaya runtii. qoraalada qaar si fiican looma arka. manage future activity ayaa riixaysa halkaas. markaa halkaas riixda dabcan waxaa lagu weydiin doonaa password mar kale. iska ilaali qodobkan 8aad markaa imaato waxaa lagu weydiin doonaa waxa la dhahay password. markaad tiraahdo halkan waxaa ku qoran off Facebook activity default saa la socoto on waa daaray. marka key future Facebook safe your account allow personalize your experience. marka activitygaadii waa daaran yahay. markaa halkaas riixdo wuxuu noqon doonaa off. markuu off noqdo kadib halkaas ayaa tallaabooyin horta tegaysa. laakiin waxaa ka horeyso intaada off dhihin clear waa clear garaynaysa. intee ka clear garaynaysa qodobkan waxaad tegaysaa your Facebook activity number 9. waxaad arkaysaa kuwa dambeysa ugu dambeyso booqatay imo booqatay wisha booqatay biba booqatay whatsapp booqatay bangi numberkaaga booqatay waxyaala lagu informationada aad booqataa arkaysa. haddaad rabto inaad aragto wax badan learn more riixaysa. kadib maxaa soo baxayo what can you do maxaa samayn kartaa haddii informationka noocan uu kusoo baxo. manage of Facebook activity inaad manage riixdo waa managtii haddaan soo arka waaye oo dib u noqonaysa manage. halkaan ku keenaa manage markaa dhahdo this is manage your future activity. kadib daaqadaas ku keeni manage activity. waxaan riixaysaa intaad wax kala sameyn clear activity your account. asigaad ku dhufan doontaa kabacdi waxaa leedahay clear history finish. waxaan meesha ku yaallo waa la masaxi. kadib markaasaad waxaad u baahan tahay ya number 12 markaad joogto waxaad u baahan tahay in hal step gadaal noqoto oo ah more option riixaysa. waxaad riixaysaa halkan more option. kadib more option markaad riixdo halkana riixi doonta manage your future activity. kadib password la weydiinayaa. kadib marka stepka u dambeeyo 11 ayay noqonaysaa. su-aashana soo bixi doonta. xaaladdu waxay noqonaysaa marka inaad ka dhigto turn off inaad damiso waaya. here wuxuu tilmaamayaa turn off future activity. marka disconnecta laga dhigaya laakiin goorma it maybe takes 48 hours until full disconnect from your account. laga bilaabo saacadaas waxay noqon doontaa 48 saacadood. 48 saacadood ayay noqonaysaa hadduu ilaahay yiraahdo. marka qaabkaas ayaa loo damiyaa. waxaan rajaynayaa in walaalaha dhammaan ay fahmeen 11kaas tallaabo ama 11 stepka aad marayso markaad doonayso inaad future of Facebook activity aad samayso. meel kastoo joogtaan walaaladeyda waxaa idinkaga tegay amaano allah.